السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وادي سلام أصحابته خيارته شرفته لما الكستو كنا شهين دمانتين أنا ما شاء الله تبارك الله أمدي سوماليد وكعدي إني إسكيد إسكو معمولان وقمهد عليان مدحوينيه سوماليد إن محمد عبد الله فرماجو إنه tanks ay dhaheen oo ay rabaan dadkani inay guri iyo adduunyo u dhisaan hadda oo naqshadayntii guriga iyo design-kiina lagu baratamayo dad shisheeye ay hadda ku baratamayaan oo maxaa la yidhaahdaa soo gabangaboobahaya iyo waxa weeyaan maxaa la yidhaahdaa iyadoo hadda laga hadlayo sidii ay dadkii lacagaha soo kala gaarsiiyey sidii ay maaragtay ugu sheegi lahaayeen lacagahoodii inay soo gaartay bal nala dhagaysta qisadan sheekadan thank you mahadsanid madaxweyne farmaajo hase ahaatee madaxweyne kasta oo soo mara wadanka oo si wanaagsan u soo maamulo ama wax ugu soo qabto ama ummadda ay u riyaaqdo sidaasoo kaleeto ayaa loogu abaalgudayaa insha allah madaxweynaha iyaga cusubna ilaahay waxaan ka rajeynayaa inuu ummadda hadalkeeda maqlo dhalinyarada hadalkeeda maqlo wadanka gaajaysan rafaadsan dhibaataysan oo maqlo uu wax walbana ka hormariyo insha allah. السلام عليكم anigoo ku hadlaya magaca guddiga isku xidhka ololaha shacbiga ah ee mahadsanid madaxweyne waxaan halkan idiigu soo gudbinayaa bayaan guddiga ka soo baxay kaasoo ka kooban 4 qodob. qodobka koobaad guddigu waxay u mahad celinayaan dadweynaha Soomaaliyeed sida sharafta badan ee ay uga qayb qaateen ololaha iyo sida dardarta leh ee ay u wadaan ololahan shacbiga ah ee mahadsanid madaxweyne oo xilligan maraya meel aad iyo aad u wanaagsan. qodobka labaad waxaa farxad inoo ah in aan u xaqiijino qof kasta oo Soomaaliyeed oo koontooyinka rasmiga ah ku soo hagaajiyay ku talagalkiisa dhaqaale ee uu kaga qayb qaadanayo ololaha mahadsanid madaxweyne inayna soo gaartay dhammaanba lacagihii iyo dhambaaladiinii aad kaga qayb galayseen barnaamijka mahadsanid madaxweyne. waxaa sidoo kale aan idila socodsiinaynaa in aanu kaydinay oo diiwaan gelinay magacyada qof kasta oo ka qayb qaatay ololaha dhammaantiina si gaargaar ah ayaan idinla soo xidhiidhi doonaa haddii uu alla yidhaah. qodobka saddexaad guddigu waxa uu u mahad celinayaa injineerada Soomaaliyeed ee dalka iyo dibaddaba nagala soo xidhiidhaya kuwaas oo talo iyo farsamo nagula wadaagay nashqado dhismaha guriga. sidaas darteed waxaan ogeysiinaynaa injineer kasta oo Soomaaliyeed oo doonaya in uu ololaha kaga qayb qaato nashqad guriga taariikhiga ah ee mahadsanid madaxweyne inuu noogu soo hagaajin karo nashqadda iyo hindisihiisa emailka shaashadda idiga muuqda ee mahadsanid madaxweyne @gmail.com. qodobka afraad waxaanu walaalayaal saaxiibayaal idiin soo gudbin doonaa si aanu dib idigu xasuusino koontooyinka iyo telefoonada rasmiga ah ee aad kaga qayb qaadan kartaan ololihiina shacbiga ah ee mahadsanid madaxweyne kaas oo muuqaalka soo socda uu idiin faahfaahin doono. inta ka horeysa waxaanu idin leenahay dhammaantiinba dadka Soomaaliyeed waa u jeedaan qof walba oo kasoo qayb qaatay ama gacan ka geystay mahadsanid madaxweyne waxa weeyaan way la soo xiriirayaan maxaa la yiraahdaa lacagahoodii inay soo gaareen na way u soo sheegi doonaan dadka injineeradana waa maqlaysiin oo ma aragtay designada habkii loo dhisi lahaa guriga iyo naqshadihii rabana inay ka qayb qaataan ama ay ka qayb galaana waa la soo xiriiri karaan oo waxay kala soo xiriiri karaan qadadka telefoonada mahadsanid madaxweyne gmailka. marka niyada qof walba ha u degto oo ha u qabowdo lacagihii qof walba diray inay gaartay insha allah. waxaan rajeynayaa sheekh xasan sidaas oo kale inaan guryo ugu dhisi doono oo ma aragtay aan uga qayb qaadan doono
haddii uu la yimaado sida madaxweyne farmaajo oo kaleeto iyo kasii fiicanba insha allah. waana ku hami weynahay, waana ku rajo weynahay. madaxweynuhu waa bilow, hadda ayuu wadanka qabtay oo bilaabay. waxa weeye waqtigiisa waa in la siiyo. mahad salaadna wuu dhib badan yahay, kaas waxa weeye allah naga qabto. aniga mahad salaad uma boginin, aarsi ninku jiro uu egyahay. marka waxa weeyaan like-ta iyo share-ta iyo subscribe-ka saara, like, share and subscribe-ta ugu dadaala. insha allah caafimaad khayr ayaan idin rajeynayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.